سلام الله عليكم داوديال ميل كاستو دونيدا كجوجتان داوديال waxaan barnaamijkeena oo aad dowdwada ku soo qaadan doona dalkaasi Itoobiya sida la socotaan balabadii sano ugu dambeysay waxa waqooyiga dalkaasi Itoobiya ka socday dagaal xooggan oo u dhaxeeya jabhadda TPLF iyo dawladda federaalka uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed hadaba daawadayaal waxa bishan gudaheedii lagu soo afjaray dalalka Koonfur Afrika iyo Nairobi heshiisyo ka dhacay oo u dhaxeeya jabhadda TPLF iyo dawladda Itoobiya hadaba doodeeno dood aad u xiiso badan oo aan dhex dhigi doono labada siyaasi iyo waliba dadka ka falooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika waa saaxiibkay Bidhaan iyo Shide ayaan rajaynaynaa in doodaasi aan dhex dhigno waxaan se ku horeyn doonaa oo aan su'aasha weydiin doonaa saaxiibkay Bidhaan bal waxaad nooga warantaa maadaama heshiiskaasi dalalka Koonfur Afrika iyo Nairobi lagu kala saxiixday heshiiskaasi waxa in dhawaalaba jiray in ma garanaysay dawladdu xageeda ay ka cabanaysay in la fashilinayo oo de ma garanaysay ama dawlado iyo in kasto ina magac dhabin iyo urur far badan ama jabhadaba fashilinayeen hadaba maadaama xagga dawladda aad u dhunduleesho yaa fashilinaya arrintan oo ka dambeeya horta fashilka inoo dambeeyo heshiiskii markii la gaaray heshiiska horta wuxuu ahaa heshiis Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kaliya dan ugu jirto ahaa heshiis mataa TPLF dan ugu jirtay ma taqaanay ma ahayn laakiin way ku khasbanaayeen iyadoo taasi ay jirto haddana waxaa jira say dawladda mataa hore u sheegtay in dad badan oo dan gooni ah leh in mataa ay doonayeen in heshiiska inay fashiliyaan laakiin dawladda Itoobiya waxa mataa way ka weyn tahay markii loo fiiriyo waayo Eritrea Ethiopia had oo kala dilo soo qaato saale dawladda fashilnay markaa ka mid tahay Eritrea in ka soo ay saaxiib ay yihiin hadda markaa Afwerki iyo ninka Dr. Abiy Ahmed Masar oo kale waa dawladda markaa fashilnay aan marna dooneen in markaa Ethiopia inay heshiiso Sudan oo kale waa la mid iyadana dawladdaas oo markaa ay galbeed markii la fiiriyaba dawladaha gadaal ka riixay TPLF markaa ay ahaayeen marka dawladda Ethiopia inta badan dadka qaar waxay leeyihiin jabhada gudaha oo Itoobiya ka dagaalamayo yaa fashilka qayb ka ah laakiin jabhadaas waa la soo adeegsan karaa laakiin wax badan ay tari karaan malahan waa jabhada Fano iyo midda Oromada adaa tarba marka muhiimadu waxa weeye labada jabhada laftooda wax ay hadda soo kordhinayaan weyn malahan waayo dawladda Itoobiya waxay muquunisay oo ay ma taqaanay ay cabsiisay kiniin ahaan u laqsisay baakigi nimankii TPLF awoodda ilaahay waa garan 500 oo kun oo waxay ahaayeen ciidamada militariga ee ahaayeen waxa laga soo reebay 200 waxaan gaareen inta ka waa la qoro waa gartay fahmaysa marka ahmaaro oo ma taqaanay TPLF soo baxay carri jirtay iyo waxa soo haray iyo Oromo oo ma taqaanay wariga la gumeystaba oo abiis uu maxtaan la dagaalin ayagana joogo marka ay lafto maanta waxay soo kordhinayaan malahan marka dawladda Itoobiya hadda heshiiska ay gashay si wanaagsan ma taqaanay u socdaa oo xitaa waxa la qiimeeyay xitaa ila boorada iyo ilaha meelaha mataqaanay waa dhibaatada gaartay lacagta ku bixaysa tamanta waa la sheegay oo beesha caalamka ka saaciidi doonaan 5 milyan bal aad u weyn yaa la gelin doonaa marka waxa kor la sameyn doonaa in mataqaanay TPLF tan hadda markii hubka laga dhigana in dhaqan cilin loo sameeyo iyagana loo sameeyo marka dawladda iyo TPLF heshiiska ay gaareen si wanaagsan buu ku socdaa tartiib u hirgelaya waad mahadsantahay Bidhaan waan kugu soo noqon doonaa hadduu Rabbi idmo Shide bal waxaad nooga warantaa heshiiskan adigu sideed u aragtaa maadaama TPLF ay tahay jabhad xoog badan oo waliba dhanka kale markii laga sii fiiriyo 27 sano ay dalka Itoobiya soo xukumaysay waliba xisbigii la oran jiray EPRDF ee salka ballaadna ay soo haysatay heshiiskan iyo qaab u dhaqankiisa iyo inuu hirgeliyo bal arrintaasi ku soo dhawo aad iyo aad baad u mahadsantahay hudhudow xogaga TPLF si la wada ogsoon yahay TPLF waa niman qadiimiya waa niman siyaasadoodu ay aad u sareyso Dr. Abiy Ahmed xagga diblomaasiyadda markii laga fiiriyo ayaga aad uga sareeya xagga khibradda maamul wanaaga iyo hogaaminta dalka TPLF sida la wada ogsoon yahay waa niman geeska Afrika taariikh ku leh haddaan soo laabano heshiiskii dhexmaray xogaga TPLF iyo dawladda Itoobiya laba dhinac hadii laga fiiriyo maslaxada dalka Itoobiya iyo xogaga ishaya qolo walba qolada kale sida ay u aragtay awoodeeda in ayadu ay muquunin karto haddaan fiirino xogaga TPLF muddo dheer bay dagaal dawladda Itoobiya ku jireen 100 milyan ay la dagaalameen oo Itoobiyana sida hadda warbixinta ugu dambeysay la sii daayay midowga Afrika ay sheegeen iyo sidoo kale dawladaha inta badan siyaasiyiinta ka falan qaado siyaasadda geeska Afrika 1 milyan oo qof oo Itoobiyana inuu dagaalkaas waxyeelay oo ku dhimatay waliba sida ay inta badan warbaahintu ay qorayso inay ku dhinteen 1 milyan oo qof oo dagaalyahanadii ku dagaalamayay Itoobiya gudaheeda ayay wararku inta badan ay qoreen warbaahintu qoraysaa
sidaa ay tahay haddana xagga nabadda Ethiopia waxay maslaxa u jirtaa markasta in la isu tanaasulo xogagan TPLF-na ayagana loo fiiriyo dhanka wada noolaashaha inay dalka Ethiopia ay weli ay kusii ay ka misiminahan siyaasadda Dr. Abiy Ahmedna inuu qudhigiisa u garwaaqsado inay xogaga TPLF ay yihiin rag aan la dhayalsan karin weli dagaalyahanada Tigray aha oo jira inay dagaalamaan ama dalkooda iyo dadkoodaba difaacaan welina cadowga cabsi gelin kara inay jiraan asna Abiy waa inuu garwaaqsado shido hadda halka ka dhaxgalo waxaa jiray heshiiska ku jiray in nimankan hubka dhigis laga saxiixay oo laftigoodu ay barihi ugu dambeysay lahaayeen dawladda Eritrea hadii ay ka baxdo hubka waan dhigaynaa marka hadii hubkii laga dhigo Soomaaliya in wixii kolba loo garto oo in la siin doono dawladda federaalka ay u qoondeyso oo noqon mayaan niman laga adkaaday horta waxaan waa qowda muqasho waxba u qaban TPLF arinta ay wadato iyo tano Abiy wato wax soo dhawmaan waa kaafiye kala dheeri TPLF intay hub dhigto inay dhad Abiy Ahmed oo maamul marna suurtagal ma ni xabaalan marka TPLF siyaasadooda koobaad iyo policy-gooda koobaad waxa waaye inay ciidamada Eritrea baxaan hubka siyaasadda waxa ka mamnuuca inay hubka dhan oo la wado dabada laga soo maray in dawladda Ethiopia lagu soo reejiyo wax suurtagal ah heshiiska oo ku jiray ma aha dawladda Ethiopia inay TPLF sida ay tahay hubkeeda ugu soo wareejinayso ma aha saxiixaasi beesha caalamka oo maadaama cadaadis badan ay saaraysay dawladda Ethiopia ay la kulmaysay dhaqaale la'aan badan cunno qabateen badan oo saareed xogaga Tigrayguna lagu cadaadinayay inay wax u saxiixaan waxay doonayaan noqdo hadda doona markay maqal ku laabtaan waxay doonaan ka yeelaan ee lahaan barnaamijkii warbaahinta in loo soo bandhigo maadaama rag siyaasiyiin oo khabiiro hore oo Afrika madax sarsare ka soo noqday ay meesha fadhiyeen waxan waxay aad maamuus bay heshiiskan in madaxdaasi ayna fashil meesha kala soo laaban maadaama hogaamiyaal loo xushay ay ahayd inay xogaga soo heshiiyaan marka TPLF shuruudeed hortukado in Eritrea marnana in Ethiopia intay ka baxdo oo ayada oo heshiiskaasi Ethiopia u daneynaysa in Ethiopia xasisho Eritrea ma baxayso marka tani wax ka suurtagalay ma TPLF dagaalka way sii wadi mustaqbalkana TPLF qabsan doonto Ethiopia iyo Eritrea dhagaayna ka garaac badanta meesha ku noqdo bidano waan ku soo noqon doonaa bidano waan ku siinaya qodobka ninkan hadda u yiri TPLF qabsanaysan ku sheegi Ethiopia hadda markii iyo TPLF markay heshiinayeen waxyaabaha lagu heshiiyay markaad fiiriso wax aqal geli kara ma aha TPLF iyagoo intaas dagaalay oo shacabkoodii laayay oo cunaqabateen la saaray oo ay baaba'een oo macluul u dhinteen yaa waxay aqbaleen in ay hubka dhigaan fiiri adduunka kama dhicin jabhadda lagu sameeyay way yartahay aad u yartahay in hubka dhigaan way aqbaleen way saxiixeen meel ay ka laabtaan ma laha waxay saxiixeen Abiy Ahmed inuu xukumo xukunka sii joogo way ogolaadeen waxay ogolaadeen dawlad wadaag in loo dhiso fiiri دول وذاقي إلا قصة حتى قبل زول محكومة حتى وحكو درسده واحد هوران هذا الهوران واحد لي واحد ماموس بوا مدح أفريقيا لقوا ماموسي شيس كان ماموس بوا واحد كسر الجلجة ما كلام مالك اللي يقول لابتنا وربعين تويلها هاللين واحد واحد له إن هو بكده جس متجرتين هن قدام كلام ماشي كسران واحد ورشة هو لقبنا يو أيضا تامش وكسران إرتريا أيضا وأنا ماشي كبحده مركا الشيس كاسي وحو عضينا يا إنا يهيد maamuus loo sameeyay madaxda sarsare Afrika meesha joogto okay shido waxa leedahay hadda nimankani hubna ma dhigayaan Ethiopia mustaqbalka dhow ay qabsan doonaan baad leedahay hadii hadda way ka hortaagan Eritrea oo nafurada kaga dhimatay 10,000 askari yaa difaacaysa Abiy hatta kalsooni kuma qabo ciidamada Ethiopia si asaga ilaalin karo ma difaacay in Ethiopia joogo wog yahay halka malyan dhan waa ciidamada Ethiopia hal askari laga mareeyay dabka lagu shubay waxa waa maleeshiyada afar bilood lagu soo tababaray oo hatta qorisay qayb ka mid ah aqoon oo jiid horantii ligayo marka qoriyaha si taagay waa Abiy Ahmed haduu rabo inuu maslaxo ama TPLF uu yahay inuu awood military ku maqoonin karo wadanku waa wadan madax banaan si ciidamo aan mandate ku joogin ay gobolka dalka uga dagaalamayaan oo hatta ciidamo u tababarayaan una soo waruhayn marka waxay cadeynaysaa inuu Abiy aan meesha waxba ku hayn TPLF Eritrea la dagaalamaysa Eritrea saddex qolo dagaal ku dhaxaya waa ahmaar oo nafurida oo odayga 60 jirka uu dagaalamayo iyo Eritrea iyo TPLF marka Abiy asagu waa daawade wakaas waa maamuus ay ahmaarada meesha ku soo noqonay badano waxaan ka hadalnaa waa arinta saxda ah jirto mise waxaan ka hadalnaa bomboonita oo dimisi wayaan ma ka hadalnaa ma arinta saxda ah jirto Ethiopia dagaal waxa ku soo qaaday Masar iyo Suudaan iyo Mareykanka reer galbeedka oo la kala saareen saaso ay jirto Abiyna wuxuu raasiday marka cid kasta oo garab uu ka heli karo oo ay kamid tahay Eritrea iyo cid kasta u dhow uu garab ka raasiday wuuna ka helay dagaalkan dagaal caalami ah buu ahaa
saa ay tahayna ciidankii Ethiopia ee khibrada lahaa dagaalka lama gelin ilaa hadda waa gartay ciidankii Ethiopia uu waa talagalay kayd dagaal ma gelin ba haye waxa TPLF la dagaalayay ciyaal yar abi u diriyay dumarka iyo maarta waxaas u diri jiray waana kuwa mataqana maanta mataqana ay laqsiye kininka oo ay ku aqbaleen inay hubka dhigaan kuna khasbay in mataqana gobolka inuu xukumo abi fahmaysa بدار وحل سويدينيا لمن كان تضبي لا تنسى سو حكوميه وان من wax bartay jaamacadaha Ethiopia dadka ugu faraha badan markii statistics lagu sameeyo waa nimanka maxaan ku dhahay 4 milyan ee Tigreega away siyaasadda iyo diblomaasiyadda caalamka 7 sano xiriirdahoodii iyo nidaamkoodii hayeen marka nimankan adiga ma waxaad is leedahay nimanka noocaas ah abiyintu u taliyo oo gobolkooda lagu maamulo ayay sii joogi doonaan ba is leedahay arintaas waliba reer galbeedku dhabarku ka taabanaya horta Tigreeg ma baran Tigreeg uma weey Tigreeg 2 nin 3 nin ee wax ka baratay Tigreeg markay meesha qabsadeen way isla weynaadeen asoo matala ninka hadda ka imaada beerihiisi yaa laga dhigay jalanka uu sareeyo ciidanka waxa laga dhigay meel kasta ay xukumay marka wax aqoon ay lahaayeen ma ay jirin dadka wax bartay ee aqoonta lahaa waa axmaarada waa nimanka meel kasta ka shaqeeya dalka فهميسه nimanka wax bartay ee soo jabay nimankaas way laakiin TPLF wax aqoon maanta ay leedahay ma jirto haday aqoon leedahay markii korontada iyo bangiga laga jaray iyo dib u hagaajisan lahaayeen waxa Ethiopia bariyaan ilaa maanta noo sameeya maxay u leeyihiin aqoon ma laha badana waxaan ku soo noqon doonaa daawadayaal doodeeni ayaan bartan kaga jiraa ee Ethiopia iyo heshiiskeedii ah shidow waan arkaa waad soo taagan tahay hadii aan ka hadalo mustaqbalka gobolka Tigreega iyo TPLF maadaama Eritrea haatan la leeyahay jabhad cusub bay soo abaabushay oo qasab inay hubka ku dhigto qolada TPLF maxay kula muuqataa adigu gobolka Tigreega ana waxay ila muuqataa saadaashiisa gobolka Tigreega horta hadda muddo dheer oo kale dagaalka ma socon karo kamana sii socon doono guushuna dhan bay u dhacaysaa guusha dhan dhacduna waxa waay maadaama ay heshiisyo hordhaca soo dhaceen heshiisyadaasi abi asaga wax maslaxa ugu jirto marka waxay noqon in Eritreanka meesha ka baxaan Tigreeyna hal mar dharbax ku dhufato adisaba laga wada quraacdo abin uu meesha ka baxo midda kale ku soo jarmaysa xaaladuna saan bay socotaa بدل ما أمسته إن من كانوا حيلات أي وطن أو ضد فربضان أو بدار وحاجة سياسيين أو كفارلون يعني من كانوا هبكي عاستين دون يانا قلب كودنا وحي يقولوا جيهن إرتريان كوكبحين إن إرتريان تكبح هذا الصبح أي كوا بريستان كبولشي يوم كنا هاي ديجانا داس إن كوسو قادان قرشة أياجرة ما كأرنت اسمه هيرجل مثله هذا بعد كهور تاجر مرة هذا لفت هذا بعد عد كهور تاجر مرة أود بين هينين صورة قلنا مرة إذا ما هو بالحوالي مرة وحكي أود بالناي سبتمبر ممكن لو أتنكي مجرين ساسو أيت رحوي قبس موين وماكي قدرنا عيدك تبي وررين وستلقي له وريجين وهو كده نقاطين يهوب كود إيه هستين دمان ما أنتم نقاطين صارت مالك استرجل دجالين سكب الدابة إرتري مالك ما وجرت بقى إرتري مالك ما وجرته وهذا دجال سوق هذا بريمة إرتري وصون قانسا إيه قام مثلا يكون قانسا مركا إن هيراته واحد من كان قدام المانتا ملها وحين نقول دونان عد وجود ليس إثيوبيا يجي نقول دونان ودمهزتي اللي بدينا بوحان ربا لبا كلمو أما هلال دقيقنا والبينو كوسو كوبو مستقبل كإثيوبيا يا ساداشا وحا أي نقول دونتو هل دقيقنا وسوكو إثيوبيا إنك حكومة جري مبا حكومية وحين هاي TPLF تكري واي سراكيش أوجس رئيس TPLF الدلوينها إثيوبيا بري أفريقيا وحكومية وأنا من كان مقالات أركيسي يصير داعي لجاري حتى قبريه سومالي ذا وعجب جبلين جري وذاك يصور وكذا حموقه مركا حالته وماشي هذا ما يكون نقول نقول إنك حكومة جري مبا حكومية وكاس بدنا هي هرتو أدون كسيدي صورت معه وإيش بدري إثيوبيا أحمر صور حكومة جرت ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم أي حتى إيجا سو هيستي أبسيني اللي هيجري أيها الفتوى ده حكس حكومة بدنا ما ينما كان إيجا أبسيني إيجا عيدا جرب هاي أبسيني لبض على سكولها لكن عيدا بكاين إيجا لكن بقرطوية ذاك سو هيسنجري أحمر هاي ما أنت أحمره صدق سعود بي هذا بقى وحما هيان ساس دراد ما حتى وكوريجا حكمك TPLF يا بسيني ده ما وكوريجا ورما iyo umad kale oo garan doonin uu ku wareegay wana socdaana marka Ethiopia waxay u socotaa hadda wada sax ah oo dimuqraadi ah doorashada la gali doono oo wanaagsan bay markaa ku socotaa xilli kiriitalisnimada iyo iscaburintina way soo dhamaatay TPLF iyo axmaarana u dhamaatay labaduba aad iyo aad baad u mahadsantihiin bidhaan iyo shide oo inta badan ka qayb qaadanaya doodeeni maanta daawadayaal barnaamijkan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid la mid ah waxaan idinka ka tagaynaa sida iyo nabadgelyo